lacagtii markii la waayay oo haweenaydii xaafadda ama guriga lahayd lacagtii meel walba ayay ka raadisay way dadoontay way weysay nakata marka haweenaydii marka waxay tiri salaamullaahi calaykum idin lahaantiinba daawadayaal meel walba adduunyada ka joogtaan waa walaalkiin saaxiibkiin Aligo channelka naga daawanaysaan waa Aligo production fadlan haddaad channelkan ku cusub tahay like share comment subscribe maanta waxaan idin wadaa barnaamijkeennii haddii ay kugu dhici lahayd maxaad samayn lahayd maanta waa qayb kale oo xiise gaara wadato haddii aan u guda galo barnaamijkeenna maanta wadaad ayaa qoys ayaa wadaad u wacdeen si uu quraan ugu aqriyo xaafadda wadaadkii ayaa loo wacay waxaa lagu yiri wadaadow noo imaaw kaale xaafadda quraan noo saar dhib baa haysta kolley wadaadkii wuu imaaday xaafaddii quraan buu ku akhriyey quraankii wuu dhameeyey wadaadkii markuu quraanka dhameeyey wuu baxay hawshiisa wuu dhamaystay dhowr saacadood kadib intuu markuu wadaadka maqan yahay ayaa waxaa la waayay lacag miiska saarneed haweenaydii guriga lahayd lacagtii way weyday meel walbay ka raadisay sanduuq baar boorsada baar meel walba baar luuq walba wax dhiganaysa baar way ka weyday marka haweenaydii marka waxay tiri xagee lacagta aadi kartaa armaajada sanduuqa meel walba ka weyday lacagta markii wadaadku imaanayna waxay saarneed miiska haweenaydii markii waxay tiri wadaadkii unbaa guriga ku dambeeyey lacagtan asagaa qaatay waa tuug wadaad ma ahayn kaasi waa shaydaan wax laga aqbalayo ma jirtay tiri wadaadkii unbay un ay wixii ay haysay unbay u dhoobtay ku dhamaysay kadib maxaa dhacay kadib wadaadkii quraankiisa lama aqbalaye waa shaydaankaasi tuug waaye ha un dhahdo haweenaydii sanad kadib ayaa xaafaddii haddana waxay u baahdeen in quraan la saaro ama quraan loogu akhriyo ninkii xaafaddii lahaa ayaa wadaadkii saaxiibo ahaayeen ninkii xaafaddii lahaa wuu wacay wadaadkii wuxuu yidhi wadaadow bal xaafaddii baa wax na haystee waxaan rabaa dhib baa na haystee inaad quraan noogu akhriso xaafadda kaalay noo kaalay wadaadkii wuu imaaday markuu xaafadda imaaday ninkii xaafadda lahaa wuxuu ku yidhi wadaadow bal quraanka xaafaddii kugu akhri laakiin sidii hore kuuma aaminsani ogow wadaadkii wuu yaabay wuu la fajacay arinta ninkaana uu leeyahay sidii hore kuuma aaminsani wadaadkii wuxuu ku yidhi sidee maxaa xaggee wax ka qaldameen maxaad u leedahay sidii hore kuuma aaminsani ninkii guriga lahaa wuxuu yidhi wadaadow waxaan sidii hore kuuga aaminsaneen yow waagii aad guriga quraanka noogu akhrinaysay lacag baa miiskan saarnay lacagtiiyaan weynay lacagtina waxaan isdhahnay wadaadkin baa inka qaatay marka sidaa darteed sidii kuuma aaminsani xaafadda quraanka ii saar wadaadka waa yaabay qaadan waa ayay la noqotay arintii geesaha uu eegay dhinacyada meel walba uu fiiriyey markaasuu wuxuu yidhi bal arintaasi waa wax aan la yaabay igu noqotee aniga lacagta miiska waan dul saarneed waan arkay laakiin meeshaan iyadoo iska saaran cillada ah ayaa waxaan isdhahay lacagtaa meel cillay saaran tahee bal u xafida reerkay kitaabka qur-aankaan akhrinayay u dhexgeliyaan isiruu dhahay wadaadkii marka kitaabkii qur-aanka ahaa ayaan dhexgeliyee bal kitaabkii hala raadiye kitaabkii keeno nahablaaye kitaabkii keeno uu yiri ninkii gurigi lahaa waa loo keenay waa la fiiriyey kitaabkii haddii la kala furo lacagtii way ku jirtaa cajiib maxaad ka fahantay sheekadani daawade haddii aada kuugu dhici laheedna maxaad samayn laheyd ka soo qaadi wadaadkii ayaa tahay amaba reerkii arrintaani ku dhacday maxaad samayn laheyd daawade fadlan fikirkaaga halkaa inooga reeb waa muuqaalka xiga waad mahadsantihiin